Assalaamu calaykum. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa muxuu yahay qorshahaaga noloshu ilaa inta aad nooshahay. Nolol sidee ah ayaan doonayaa inaan ku noolaado mustaqbalka? Muxuuse yahay hadafka nolosha aan ka leeyahay? Qof noocee baan rabaa berrito inaan noqdo? Se maxaan doonayaa nolosha inaan ka dhex xaqiijiyo inta aan noolahay oo aan gaadho? Balse intiinaan muuqaalka gudagelin, muuqaalka like saar. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay, subscribe channelka. Haddaad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay. Siina share gare. أهلا وسهلا يا رمضان، شهر التوبة والغفران. مرحبا بك رمضان رمضان، شهر الذكر والإحسان. أهلا وسهلا يا رمضان. waad iska nooshahay oo ma taqaanid waxaad u nooshahay, mana garanaysid meel aad u socoto, mana taqaanid waxaad doonayso inaad adduunyada ka noqoto. Waad cuntaa, waanad cabtaa, waad seexataa, waanad soo toostaa. Haddaba maxay tahay sababta aad ugu diyaar garoobi leedahay safarka nolosha? Qofku markuu safar gaaban gelayo, waad garan kartaa siduu ugu diyaar garoobo wax kastoo safarkiisa ka qayb qaadanaya. Haddaba waxaa nasiib darro ah safarka nolosha ee laga yaabo inuu qaadanayo 60 sano, 70 sano. Sababta uu qofku ugu diyaar garoobi layahay nolosha waxaa ku guuleysto oo keliya kuwa yoolka cad leh, garanaya waxay u nool yihiin iyo meeshay u socdaan. Sababaha inta badan keena inaanu qofku waqtigiisa ka faa'iideysan ama se uuna helin xamaasadu wax ku qabto waa yool la'aan. Qofku markuu yool leeyahay ee meelu calaamadsan tahay uu u socdo, wuxuu helayaa dhaqaajiye iyo xamaasadu awoodiisa dhan u isticmaalo, waqtigiisana ma lumiyo, uu ka faa'iideystaa. Kasoo qaad qofka orodyahanka ee tartanka ku jira, suuragal miyay tahay inuu iska fadhiisto? Suuragal miyay tahay inuu awoodiisa badh la hadho? Haddaba qofka hadafka lehina waa sidaas oo kale. Daawadaha sharafta lahow, adigaan kula hadlayaa, naftaada qiimee, isweydii muxuu yahay hadafka nolosha aad ka leedahay? Ma waxaad leedahay yool cilmi? Ma waxaad leedahay yool siyaasadeed? Ma waxaad leedahay yool dhaqaale? Ma waxaad leedahay yool kale oo intaa midna ahayn? Haddii jawaabta togani tahay qodobkan waad ku baastay, waxaa kuu hadhay oo keliya inaad dejiso istiraatiijiyadii aad ku gaadhi lahayd meesha aad u socoto. Su-aasha labaad een ku weydiinaya waxay tahay, ma leedahay istiraatiijiyad qoran oo cad oo dariiqaad u mari lahayd meesha aad u socoto? Ma kuu cad yahay? Haddii jawaabtu tahay maya, waxaan ku leeyahay yoolkaa quruxda badanee dejisay waxba ka suuroobi maayaan ee wuxuu noqonayaa yididiilo madhan ee sidaa ogow. Su-aasha kaleen ku weydiinaya waxay tahay, istiraatiijiyadda aad dejisay ee dariiqii aad ku gaadhi lahayd yoolkaaga ma dabaqdaa maalin walba, usbuuc walba, 3 bilood mar ama sanadkii iyo wixii la mid ah? Haddii jawaabtu tahay haa, waxaan ku leeyahay hambalyo. Ilaahay ha ku barakeeyo, ku soco, ilaahayna tala saaro, una adkayso dhibta, yaanay ku niyad jabin caqabadaha kaa hor imanaya, hana is-dhiibin. Haddii albaab kaa soo xidhmo, mid kale garaac oo sidaa ku soco. Haddiise jawaabtu tahay maya, ogow istiraatiijiyadan camal loo bedelin, warqad iskaga qoran, wax horumara keeni mayso. Qodobka u dambeeyaan ku weydiinaya wuxuu yahay, ma tahay qof shaqaduu qabtay dib u qiimeeya? Tusaale ahaan, usbuuc walba shaqaduu qabtay isweydiiya wixii u qorshaysnayd, maxaa hirgalay, maxaanse hirgelin, sababtu maxay u hirgeli waayeen? Ma tahay qof sidaa u qiimeeya, mise waxaa tahay qof iska socda oo iska wada shaqada? Haddii aad tahay qof si joogta u qiimeeya, waxaan ku leeyahay hambalyo. Ilaahay ha ku barakeeyo, hana ka aqbalo camalka ee sidaa ku wada. Haddiise jawaabtu tahay maya, ogow inay wax kaa qaldan yihiin oo waqtigii aad ugu tala gashay inaad hadafka ku xaqiijiso aanad ku gaadhayn. Maxaa yeelay waxaa jira khalado badan oo dib ku dhigaya maadaamaad qiimeyn joogtaa ku samaynayn hadal iyo murti. Haddii aanad ahayn qof sidaa u shaqeeya oo noloshu sidaa ugu socoto, haddana ka cabanaya guuldarro iyo faqri, ogow inaad dariiqa guuldarrada adigu xorriyadaada ku dooratay. Daawade, waad ku mahadsantahay haddii aad soo gaadhay ilaa dhammaadka muuqaalka like saar. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay, subscribe channelka oo nagu soo biir. Haddaad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay. Siina share gare. Wassalaamu calaykum.